iyadoo si weyn loo hadalhayay geerida wasiir Cabbaas Siraaji maalmihii tagay ayaa waxa ay suura gashay inaan socdaal shaqo ku tago hoygii oo ka soo hana qaaday marxuumka geeriyooday xilliga aan tagay guriga waxa ka jiray mashquul waxaana wali bulshada u tacsiyanayaan eelkii ku geeriyooday marxuumkii dhawaan lagu dilay gudaha caasimadda Muqdisho waxaana guriga qoyska laga dareemayay murugo maadaama ay waayeen wiil ay ku soo barbaariyeen nolol qaxooti oo aad u adag Maryan Cabdullaahi Siraaji waxay hal sano ka weyn tahay marxuum Cabbaas wasiirka hore ee howlaha guud iyo guriyeenta dowladda federaalka Soomaaliya waxayna TV-ga Hon Cable u sheegtay in ay dowladda Soomaaliya ka sugayaan in cadaaladda la hor keeno si maxkamad loo saaro dadkii ku lugta lahaa dilkii lagu qaarijiyay walaalkeed Cabbaas Siraaji waa Bari Cabdullaahi Siraaji Cabbaas dadii ka weynayaan ahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu shay'in alxamdulillahi rabbil caalamiin hada ahatadeeda xootiga dib iyo rafaad wixii lagu soo waxbarada haddana kadib Soomaaliya u shaqo tagay annaga qoys ahaan uu naga dhashay oo nala dhashay balse dibka ka weyn ee ka zaa'id calaysan Soomaaliya idil u hayay hormuudkii oo maxay ahayd u wada shaqeynayay waxa iiga darnaatay waxa u bixiyeen aan soo barbaarno intii ogaantay wax la soo baray hadeertan waa tan laga hormariyay dib iyo rafaad iyo waxa lagu soo waxbaray goortan sugayna miro iyo adduun inaan gurano way ka hor dhacday dibkana dhacay waxaan u sheegaa dawladda Soomaaliyeed waayeel soo koriyo oo soo barbaariyay oo cad yaa u joogay annagii la dhalanay hawadeen haba yaraatay hadda hami iyo nolol nagu jirta inaan Soomaali ku noqono cadaaladda dawladda waxaan ka codsanayaa ka dile kan soo dalbe kan kale waxa ka ogaa kulli wax walba in cadaaladda la hor keeno waxaan codsanaynaa haddii dadka asaga maanta ee cadaalad iyo islaamnimo iyo diin lagu isku ixtiraam ay jirto inay maxkamadda qaranka la soo hortaago tilaabo sharci ana laga qaado sidoo kale Diino Xuseen Barre oo aan kula kulmay dugsiga sare ee Ifo oo ah halka uu Cabbaas wax ka soo bartay ayaa ii sharxay shakhsiyadda iyo heerka waxbarasho ee wasiirkii hore howlaha guud ee Soomaaliya Cabbaas Cabdullaahi Siraaji waxaan isbaranay 1994 anigoo fasalka koowaad ayaan isbaranay ilaa fasalkii labaad fasalkii saddexaad ilaa fasalkii sideedaad aan ka baxaynay isku fasal ayaan ahayn marka tacaanka dugsiga hoose ee Kenya markaan u fariisanay KCPE anagoo 600 oo arday ayaan u fariisanay nasiibadana waxaan u yeeranay in aan 120 arday oo ka baaseen 600 oo fooman tageen inaan ka mid noqono nabadeena dhanka kale dhalinyarada iyo culimada xarada qaxootiga Ifo ayaa sameeyay duco iyo salaatul qaa'ib ay ugu duceynayaan Cabbaas Cabdullaahi Siraaji geeridan sida weyn ay uga naxday bulshada Soomaaliyeed ayaa haddana waxay tahay bulshada qaxootiga mid saameyn gaar ah ku leh maadaama oo ahaa arday wax ku bartay gudaha xeryaha qaxootiga Dadaab Cabdisalaam Salas Hon Cable TV gobolka Waqooyi Bari Kenya